wanaagsan khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa saacadda Afrikada bari haatan waa 5tii galabnimo qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dunida iyo maantana waxa ka mid ah dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya haddaba maxaa sababay dagaalkaasi dagaalka maba dalinin Oromo waxay u rabtaa dhulbalaarsi magaaladan inay qabsato dhulka midana ay qabsato ay u dagaalamayso wax kale ma aha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta gargaar raashin gaarsiisay Puntland kooxaha samata bixinta Afghanistan waxay isku dayayaan badbaadinta dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirka ku dhuftay qayb ka mid ah dalkaas gurmad lagu daminayo dabka kacay suuqa ugu weyn magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo socda dowladda Mozambique dad Soomaali ah ay u xirxirtay dambiye la xiriira afduub iyo ka ganacsiga daroogada waxa kale oo aad maqli doontaan وسوبريايو ضيح كان بالكو وسوبريايو ضيح كان بالكو عدعت صبح عيسى وفنانك عبد بادل إبراهيم ومانتا مرتكو برنامجك موسيقى يا سلامة ومانتا وكلا دقيستان برنامجك waxaa soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dambiil anigoo Faadmo Macalin Abu Karaya idin la socodsiinaya ee galab wanaagsan dhageystayaal marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da waxaana diyaar u ah Cabdiraxmaan Xaaji Cadow mahadsanid Faadmo Macalin Abu Kar kooxaha gurmadka degdega ee ku sugan koonfurta bari Afghanistan ayaa sii wada baaritaanada ay ku sameynayaan burburka guryaha kadib dhulgariirkii Arbacada dhacay oo ay dad badan ku dhinteen dhulgariirkaasi ayaana loo badinayaa inay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof isla markaana uu burburiyay adeegyadii isgaarsiinta iyo korontada sidoo kale waxaa dhulgariirkaasi oo dhibaato u geystay wadooyinka gobolkaasi loo marayay kadib markii ay buura ku soo dumeen taasina caqabad hor leh ku keenayso maamulka Taliban ee Afghanistan hogaamiya oo ay dhibaatooyin badan haysteen Dr. Maxamed Yaxya Wayr oo ka howlgala isbitaalka Baktika oo BBC warramay wuxuu sheegay inay xaaladda gobolkaasi tahay mid aad u liidato This human crisis is not up to us. It is a humanitarian crisis. Dhibaatadan bini'aadanimo waxba kama qaban karno. Waa dhibaato aad u weyn. Waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay nala soo gaaraan gargaar bini'aadanimo. Dadku waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin caafimaad oo badan. Ma haystaan hoy iyo cunto. Marka waxaan ka cabsi qabnaa in cudurrada faafa ay dilaacaan. Tani waa xaalad halis ah. Runtii beesha caalamka waa inay yimaadaan oo ay caawiyaan, noona soo diraan cunto, daawo, qalabka caafimaadka, biyo iyo hoy tani runtii waa tsunami medical equipment water and food and shelter so that is really a tsunami madaxa sirdoonka Iran ee ugu awood badan ciidamada ilaalada kacaanka ayaa xilka laga qaaday Hussein Tayyib oo hogaaminaya wakaaladda mukhaabaraadka dalka Iran waxa xilka loo dhiibay 2009 balse lama sheegin sababta mas'uulkaasi xilka looga qaaday xilliyadii ugu dambeysay waxa dalka Iran ku soo badanayay dilal joogto ah oo loo geysanayay saraakiisha ciidamada iyo cilmi baarayaasha xiriirka la leh ilaalada kacaanka Tayyib ayaa loo magacaabay la taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida kadib markii xilka laga qaaday halka taliyaha guud ee sirdoonka dalkaasina loo magacaabay sareeyo guud Maxamed Kazemi madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay Ruushka inuu doonayo inuu gabi ahaanba u burburiyo gobolka Donbas ee loo sii ballaariyay dagaalka gobolkaasi ka socdo Vladimir Zelensky oo xalay fariin u jeediyay shacabka dalkaasi wuxuu mar kale uu soo jeediyay codsi ku aadan beesha caalamka in si degdeg ah ay hub casri oo la soo gaaraan dalkaasi barasaabka gobolka Luhansk ee ku taala bariga Ukraine wuxuu sheegay xaaladda gobolkaasi inay tahay mid adag xilli uu Ruushku isku dayayo inuu gabi ahaanba uu la wareego gacan ku haynta Severodonetsk Zelensky waxa uu sheegay in ciidamada Moscow ay geysan doonaan waxyeelo la mid ah dhibaatooyinka ay ka geysteen dekedda la go'doomiyay ee Mariupol 3 bilood oo xiriir aan ay На Донбасі масовані авіаційні і артилерійські удари. Donbas waxa ka socda weeraro madaafiic iyo kuwa xagga cirka ah ujeedada qolyaha xooga ku soo galay jihadaas waa isla sideedii waxa ay doonayaan in si tilaabo ah Donbas ay u burburiyaan Lysychansk, Sloviansk iyo Kramatorsk waxa ay doonayaan inay magaalo kasta u galaan sidii Mariupol oo ay gabi ahaanba burburiyaan Все зробити таким, як Маріуполь, повністю розбитим. Jarmalka ayaa digniin ka bixiyay helitaanka gaaska kadib markii hoos u dhac uu ku yimid gaaska ay ka helayeen dalka Ruushka
wasiirka dhaqaalaha Jarmalka Robert Habeck wuxuu sheegay dalka Jarmalka in uu geliyay heerka labaad ee xaaladda degdega ah ay u harsan tahay hal marxalad oo keliya inuu galo heerka saddexaad. wasiirka waxaa kale uu sheegay dhuumaha gaaska ee ka imanaya Nord ay haatan awoodooda hoos u dhacday ilaa iyo 40%, xilliga qaboobahana ay gaari doonto 90%. Robert Habeck wuxuu sheegay Jarmalka inuu dagaal dhaqaale uu la galay Ruushka isagoo muwaadiniinta dalkaas uga baaqay inay yareeyaan isticmaalka gaaska si ay keed u helaan. ugu dambeyntiina maamulka militariga ee Myanmar ayaa hogaamiyihii hore Aung San Suu Kyi ka raray xabsi guri lagu hayay, waxaana la geeyay xabsi ku yaala gudaha caasimadda Naypyidaw. Suu Kyi ayaa sanadkii hore afgembi militari xilka looga tuuray, waxaana lagu maxkamadeynayaa eedeymo loo soo jeeday oo intooda badan siyaasad salka ku haya. maxkamad ku taala gudaha xabsiga Naypyidaw ayaa kiiskeeda lagu dhageysanaya, halka qareennada San Suu Kyi uu doodaya fursadda ay kula kulmi karaan ay yar tahay, lagana hor istaagay in ay kiiska meel fagaara ku soo bandhigaan. wariyaha BBC uga soo warama koonfurta Aasiya wuxuu sheegay Miss Suu Kyi si aan horay loo arag in loo go'doomiyey, iyadoo hore xabsi 15 sano ah ugu soo jirtay maamulkii hore militariga ee dalka Myanmar ka arriminayay. warkii idaacadda galabnimo waana intaan dib ku celiyo Faadimo Macalin uu kariyo qaybaha kale ee barnaamijka. mahadsanid Cabdiraxmaan. aanu ku horeynay dagaal xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba sababay ayaa lagu soo waramayaa inuu ka socdo deegaanka Gurradhamoole oo ka tirsan gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya kadib weerar laga soo qaaday dhanka deegaanka Oromada, sida ay BBC-da u xaqiijiyeen dadka ku nool halkaasi. Ibrahim Guraash waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaasi Gurradhamoole. BBC-da ayuu uga waramay xaalka magaalada iyo weliba sida ay wax yihiin. walaal halka maanta ma bilaabanin, dagaalkan 4 bilood buu socdaa, ma garad. waa tahay maanta maxaa dhacay marka maanta weerar ballaaran oo shalay baaraday magaalada ku soo qaaday Oromo. magaaladiina adiga maleeshiyadii joogtay baa weerar lagu soo qaaday, maleeshiyadii 8 way dhimatay, 6 waa dhaawac. dhanka marka dadka weerarka soo qaaday maxaa khasaare ah oo soo gaaray? ani dhankaas waxba kama sheegi karo, waayo nin walba dhaawacii dhimashadiisii dib u burtay, waxba kama sheegi karo. laakiin markii magaaladan inay gubeen bay rabeen, toodii waa lisla galay markii ugu dambeysay. marka dagaalkan hadda soo cusboonaaday maxaa sababay, muxuu salka ku hayaa? dagaalkan maba danineen. Oromo waxay u rabtaa dhulbalaarsi magaaladan inay qabsato, dhulka midana ay qabsato bay u dagaalamaysaa, wax kale ma aha. waa maamulkoodii iyo ciidankoodii oo wada jira weeyaan. ilaa 6 gobol baa lisugu keenay meesha. laakiin Ibrahim soo ma jirin heshiisyo dhowr jeer laga gaaray dagaalkan? heshiiska ma hirgelin, dhinaceedu hirgeli waayey. annaga waa la qaatay heshiiska, waan qaadanay. xataa waxaan ku nidhi waxa la wixii heshiisa waan u baahanay waanu qaadanaynaa, laakiin dhinaceeda inay qaadato way diiday. dhanka dowlad deegaanka Soomaalida arrintan maxay ka qabteen? wax badan baan u gudbinay ilaa hadda. waxa weeyaan dagaalku hadduu cuslaado oo dhinacooda loo dhaqaajiyo xadkiina ha gudbina soo noqdon bay dhahaan. waxa weeyaan waanu bay raadinayaan ayaga, hadda wax ay ka qabteen ma lihin. adinka odayaashii deegaanka haddii aad tihiin ma isku daydeen in aad xallisaan dagaalkan oo mar kale uusan soo laaban? waan isku daynay way noo qabsoomi waytay, dhinaceedu way nooga qabsoomi lahayd. dhulbalaarsi u socda dee nabad waxuma tareysa, dhulbalaarsiga u socdaan. marka sidaas laaligeeda odayaalnimo dhowr jeer aan isku dayno waxba way suurtageli waayey. magaaladan aad hadda joogto ee maanta dagaalka uu ka soo cusboonaaday mooyaane ma jiraan magaalooyin kale oo dagaalkan uu hadda ka socdo? maya, hadda ma ogi wax magaalo kale toos ka socdo male. ilaa 4 bilood magaaladan ma ka socotaa. marka dhimashada dadka ku dhintaad sheegtay laga soo tago, maxaa khasaare ah oo kale oo magaalada ka dhacay, sida dad inay ka qaxeen guryahoodii? khasaaraha ka dhacay hadda magaalada wax laga qaatay male, waa laga difaacay. ragga dhammaaday ma ogi magaalada wax laga qabsaday male. maxaad hadda filaysaan marka haddii dagaalkan uusaan usii socdo? horta annaga dad oo dagaal lagu soo qaaday isdifaac buu ku jiraa, isdifaac baan ku jiraa. laakiin waxa weeyaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda federaalka ah
arrintan inay wax ka qabtaan baan usoo jeedinaynaa haddayna wax ka qabanin dhibaato ballaaran bay sii cagta sii saari doontaa waayo laba dowladood dalkan kama jira etoobiya la wada yahay etoobiya dhexdeedana inay degmo 4 bilood dagaal ka socdo waa dhaliil dowladda deegaanka iyo aan usoo jeedinaya federaalkaba kaasina waxa uu ahaa Ibrahim Guraash oo ka mid ah odayaasha deegaanka Guraadhamoole ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo qadka teleefoonkii ugu waramayay haatana kooxaha samata bixinta ee koonfur bari dalka Afghanistan ayaa la daalaa-dhacaya inay gaaraan deegaanada buuraleyda ah ee uu ku dhuftay dhulgariirka la rumaysan yahay inay ku dhinteen in ka badan 1,000 qof waxaa laga cabsi qabaa in qoysas badan ay weli ku hoos jiraan guryaha dumay Farax Lamaane ayaa isku soo ururiyay warbixinta ku saabsan dhulgariirkaasi isla markaana soo jeedinaya tiro aan la ogeyn inta ay tahay oo dad ah ayaa weli waxa ay ku hoos jiraan burburka guryo markii horeba dhoobo ka samaysnaa oo dhulgariirka uu burburiyey hanaanka caafimaadka ee Afghanistan ayaa isna aad u jilicsan oo ka hor dhulgariirka burbur qarka u saarnaa maamulka Daalibaanna waxa ay ku baaqeen gargaar caalami ah oo dheeraad ah iyadoo khadadka isgaarsiintana dhaawac weyn uu soo gaaray qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka ayaa iyaguna dadaal xoog leh ugu jira sidii degdeg loogu samayn lahaa meelo ay dadka galaan loona gaarsiin lahaa gargaar cunno deegaanada fogfog ee gobolka Paktika oo ah halka uu sida xun dhulgariirka ugu dhuftay Dr. Maxamed Anwar waa madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda Care Afghanistan waxaana uu sheegayaa in kooxaha badbaadada ay la daalaa-dhacayaan dadkaas iyada oo xaaladaha iyo duruufaha horeba u sii liitay ay iminka sii darsadeen mid ka mid ah caqabadaha waaweyn waa helitaanka howlwadeennada samata bixintu dadka waxay ku gaadhayaan socod meelaha qaarkood si ay caawimada iyo kaalmada ay wadaan ay u gaadhsiiyaan nasiib darro markaa tani waxay dibudhac ku tahay habkii samata bixinta marka loo eego jilaalkii darnaa ee jiray iyo sawirnimada oo sii kordhaysana waxay abuuraysaa xaalad khatara waxaan ka codsanayaa beesha caalamku inay si dhab ah u taageeraan dalkan dadkuna waxay kaliya ku dadaalayaan inay noolaadaan dadkii soo badbaaday iyo kooxaha badbaadada waxa labaduba ay ka waramayaan tuulooyin gabi ahaanba baaba'ay kuwaasoo u dhow xudunta dhulgariirka waxa ay sheegayaan sheekooyin ay ka mid yihiin wadooyin burburay taawarada shirkadaha telefoonada sidoo kale burburay iyo cabsi la xiriirta in tirada ay sii kororto ilaa iyo 1,500 qof ayaa saraakiishu waxa ay sheegayaan inay ku dhaawacmeen dhakhaatiir ayaa BBC-da waxay u sheegeen inay rumaysan yihiin in tiro badan oo dadka dhintay ah ay caruur yihiin kuwaasoo degdeg uga bixi waayay guryaha markii uu dhulgariirku ku dhuftay kaasoo laga dareemay ilaa iyo Pakistan iyo India mid ka mid ah dadkii la keenay isbitaal ku yaala Paktika oo ah qof dumar ah ayaa warfidiyaanka waxay u sheegtay inay weyday 19 qof oo qoyskeeda ka mid ah waxay intaa ku dartay in dhulka uu la dhaqaaqay kadibna saqafkii guriga uu ku soo dumay sidaana uu dhaawac madaxa kaga soo gaaray Maxamed Amiin Xudayfa oo ah madaxa warfaafinta gobolka Paktika ayaa isna wakaalada AFP waxa uu sheegay in kooxaha samata bixinta ay dhibaato ka haysato inay gaaraan deegaanada ay dhibaatada ugu daran ka jirto sababo la xiriira roobab xalay da'ay intaa waxaa dheer ayada oo dalka ay ka jirto dawayari ba'an heerka nafaqa daradana ay sare u sii kacayso dhulgariirkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee dalka ku dhufta muddo 20 sanadood ah ayaa caqabad weyn waxa uu ku keenay kooxda Taliban oo dib awoodda ula wareegay kadib markii ay burburtay dawladdii ay reer galbeed ku taageerayeen Afghanistan waxa 10 sanadood ee u dambeeyay soo maray dhulgariiro ay ku dhinteen ilaa iyo 7,000 oo qof kuwaasoo ugu dambeeyay kii ku dhuftay bishii January ee sanadkan kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof boqolaal gurina ay ku dumeen Farax Lamaane aad ayuu mahadsan yahay wali dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba haatana magaalada Garowe ayaa maanta waxaa gaartay diyaarad 8 shixnad ku dhow 10 tan oo gargaar raashin ah taasoo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Puntland ku nool gargaarkan oo ka yimid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa halkaa geysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar wariye Axmed Cawil oo kula kulmay Garowe ayaa waxa uu ka wareystay gargaarkaas iyo waliba waxa uu ka kooban yahay
waxaan keenay raashin oo isugu jira timir iyo raashinka kale oo degdega dadka baahan la siiyo haday ahaan lahayd sonkor saliid qudaar oo waxa degdega markaas meesha baahan looga baahan yahay marka iyaad ugu talagashaan raashinkan walaa cabula waxa jira abaaro badan oo aan ognahay marka waxa ugu talagalnay meelaha ugu daran oo abaaraha ay ka jirto Puntland meel kasta ha ahaatee ma aha in dad gooni state gooni ugu talagalnay waxa loogu talagalay meel kasto abaar ay ka jirto waa diyaarad buuxda laakiin intaanu ma aha wax Puntland oo dhan deeqaya meesha emergency ka jirta ayay keen doonaan gobolada gargaarka ee Puntland laakiin waa dad jilicsan baa jira oo meelaha qaybtood isku yimi marka hal diyaarad ma ku filan tahay maya waxa loogu talagalay dadka jilicsan in loo sii horgeeyo intii hore shaqa lagu jiray waa ogay doorashooyinka iyo intii lagu jiray waqtiga wuxuu ahaa busy waxa marka hadday bilowdeen isteediyada kale la geynaya marka tan waa tii ugu horeysay wayna soo socdaan insha Allah waa tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya tahay Soomaaliya oo dhan baana matasha mooysan ahayn meelaha kale oo Soomaalida oo kale maamulada oo kale inaad kaga bilowdeen inta aad state-ka laga doortay aad ku soo laabanaysid waxa weeye cawlo waa mahadsan tahay isteediyadii waxa u maleynayaa waa kii ugu dambeeyay Puntland maanta anaga aan soo aadno koonfur galbeed waa la geeyay oo maxaa la dhahaa Jubaland waana la geeyay maanta xataa waa u socotay marka tan ma aha inay state ani ina soo aaday oo kaliya ma aha meel uun baan tagi lahaa ama waxaan tagi lahaa koonfur galbeed ama Puntland baa imaan lahaa marka tan waxay ahayd tii afraad ama shanaad marka saasaan u soo aaday kuwa kalena wax iga xiran male waan aadaya insha Allah bidna karin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayay taasi ahayd waxaana u waramaysay wariye Axmed Cawil Jaamac haatana booliiska dalka Mozambique ayaa sheegay inay xireen 5 qof oo Soomaali ah oo looga shakisan yahay inay xubno ka yihiin shabakad ku lug leh afduub iyo ka ganacsiga daroogada oo ka howlgasha magaalada bartamaha dalkaas ku taala ee Beira 5 qof ayaa sida booliisku sheegay waxay haysteen waraaqo aqoonsi oo been abuur ah waxaana kamid ah kuwa haysta kaararka aqoonsiga Mozambique iyo Kenya baasaboorro iyo kaararka codsiga magangeliya doonka ah haddaba dhacdadan iyo saameynta ay ku yeelanayso Soomaalida ganacsatada ah ee ku nool dalkaas ayaa goor dhaweyd waxa iiga waramay mid kamid ah ganacsatada oo codsaday inaanan magaciisa la sheegin aniga dadka magacyadooda ma aan hayo laakiin waa wiilal Soomaaliya oo isku qalbi deganayeen guriga wada deganayeen baa la dhahay marka adu xilli habeenimo ayaa niman qoliyahan anti security oo yimid kabacdina way ka haysteen reality ana saamqalay waa dadka mukhalasiinta iyo dadka iyo aeroboortka ka soo saara oo sharciyo badan ay waxaas lagu qabtay marka maxaa kale oo dambi ah oo booliisku ay sheegeen in lagu haysto wiilashan Soomaalida booliisku afkooda waxay ku dhufteen in maxkamad ay marayaan laakiin waa dareemaysa dad inta gul loogu yimid sharciyo badan oo kala duwan lagu qabtay arrimaha noocaas ah iyagu waxay dhaheen community falsification iyo terrorism lug bay ku leeyihiin marka inay hadalka ay ku badsanayeen way dhici kartaa marka arrintan oo kala mid hore u dhacday ma tahay arrimahan kale way dhacday laakiin way kala duwan yihiin xilliga hore si ay u dhici jireen iyo hadda si ay u dhacayaan أول دقف مرك عرفت نوعا كان لقوا قبته على وري جري تد معناها لقوا قبته يعني تد كتبيان أو مخلصين أو شرعية لقوا قبته بعينا لكن هذا إيجو ما دام قف كأجنبي أو يكون قبته نسوي بحثهم مرينا أو شرعية كينية حورنا تد كأجي حسلا وحسوق لي ودن كينا ما دام ودن كان حالة السمدين كنا بيسي أي حالة مرجس نوعا سو يسجري marka ganacsato badan oo Soomaali ah ayaa dabcan Mozambique ku nool marka arintan sidee ay u saameynaysaa والله ولا عبسنا واسكت شرتها إن أنا هو كمية اسمه مجال هورتا وحكي دعوين يعني هو كلفنا لكن سوالف ملكس ويجوكتا إن عاد بيت سوالف أرنتاس إيش اللي هو هيا اللي هو هذا الهيا أبسط إنه معناها أبسط بدنا وهذا ما شفت لكن ده وح والمجا أو ما دام الشيء أو التلفزيون اللي قصده داي ضد نوعاس أيام يعني ما جهز كوراني مركب أبسط واسكت شرتها لكن ولي هذا كل كيس كون بهذا عصب ما دام عصبي هاي لبس حقيقي كرقاب كي سامينته ويلا دون مستقبلك markii hore sidaad sheegtay arintan oo kale waa ay ka dhici jirtay markaas maxaa dhici jiray saameyn noocee ay idinku yeelin jirtay markaas oo kale saameynta ay yeelan jiray waxa kamid ah in dadka oo kale markii ay safrayaan oo kale qofkii Soomaaliya ama ajnabiga wadada markii lagu arko kale waxa rabaa inuu ku baaro
si looga ay washkiya inuu sharciyo kala duwan oo kale inuu wato kale maadaama lagu qabtay dad sharciyo sameynaya oo falkeesh sameynaya kala qabtay oo khalasiina arrimaha noocaas oo kale ay sameeyeen laakiin hadda sidii ka duwan tahay waxay ku dhahayaan qofka marka lagu qabto sharci oo kala hadda ka horna dhacween way dhaceen marka waxay ku leeyihiin dadka argixis ayay ahaayeen magacaasida hadda qofkii uga bilaabayaan dambi magaalada hadda dadkan lagu qaqabtay Beira iyadu waa magaalo noocee ama magaalo xad ku taalo oo dadku ay dalalka kale sida Koonfur Afrika ugu safraanba magaalo istiraatiiji waaye magaalada caasimada labaad waddanka magaalada weyn waaye tikada aad u weyn baa ku taala Zambia Tanzania wadamadaas dhan baa isticmaala Congo Malawi tikada ay kala degaan waaye marka aad bay Soomaalida transportation u yimaadaan oo wadamada dariska iyo driverada aad u yimaadaan Soomaaliduna way degan tahay magaalo aad u weyn oo ganacsi aad u weyn la weeye kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Mozambique oo codsaday inaan magaciisa la shaacin qadka telefoonka ayuu iigu waramayay wali halkaad nagala socotaan waa BBC waa tahay dhageystayaal haatana madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa maanta kulan dhanka muuqaalka ah la yeeshay safiiro iyo waliba diblomaasiyiin beesha caalamka ah isagoo uga warbixiyay halka ay wax marayaan xilli mudooyinkii ugu dambeeyay ay Somaliland ka jireen khilaafyo siyaasadeed oo ku saabsanaa doorashooyinka war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu safiiradaasi u sheegay qodobo ay ka mid yihiin in tallaabooyin muhiim ah loo qaaday xagga hirgelinta arrimaha doorashooyinka in arinta ururada ay maxkamadda sare furistooda go'aamisay mucaaradkuna ay soo dhaweeyeen in komishankii hore iskood isu casileen in komishan cusub la dhisay oo qaarkood bah la ansixiyey halka xubnaha maqan ah la dhammaystiri doono iyo sidoo kale in komishanka cusub marka la dhammaystiro ay dejin doonaan soona bandhigi doonaan jadwalka iyo qorshaha lagu hirgelinayo doorashooyinka waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in safiirada iyo diblomaasiyiintuba ay iyana dhankooda ballan qaadeen in marka howlaha qabyada ah la dhammaystiro in Somaliland ay ka taageeri doonaan hirgelinta arrimaha qabsoomida doorashooyinka waa hagaag haatana Kenya waxaa xalay saqdii dhexe uu dab qabsaday suuq mugdi oo ah suuqa ugu weyn magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dabkaas oo dhowr jeer oo horena soo laalaabtay ayaa waxaa ku baaba'ay hanti aanan haatan la qiyaasin imikana waxaa socda gurmadka suuqaasi haddaba Ciise Ibrahim Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqaas ayaan goor dhaweyd ka wareystay waxa sababay dabka abaarnimada xalay 8 markay tahay ayaa dab qabsaday suuqa garan karin meesha ka bilaabay ilaa saaka waqtiga 4 saac ayaan la xarbinaynay marka khasaaro badan buu kaystay maxaa ka mid ah khasaaraha way hanti baa ku burburtay guriyaha ku dumeen ala hanti baa taalay meesha waa suuq laga adeegto qudaarta marka qudaartii way ku baabaaday hantidii nasaasay ku tagtay ciise waxaad ka mid tahay ganacsatada suuq mugdi dabcan markii ugu horeysana maaha suuqan uu gubto marka maxaa soo celcelinaya inuu gubto mar walba sidaad u sheegtay waa markii 17aad suuqa uu gubto waxa soo celcelinayana waxa waaye planning fiican oo san lahayn waayo dabka waxa u baahan yahay markii dabka dhaco inuu gurmad la heli karo marka suuqa meel laga soo galo gurmadka uu sameyn karo malaha marka iyo maamul xumo ka imaatay shacabka iyo dawladda countiga marka uu dabka dhaco kadib waaye Soomaha taas marka intuusan dabka dhicin maxaa keenaya in gubashadan mar walba suuqa uu gubto wallahi waxa sabab ma garan karno waqti walba way dhacdaa marka waa iska maciishada waa tu rabaanaysan filayno adinka ganacsatada aad tihiin ma jirtaa in la idinku eedeeyo in wadooyinkii aad ka dhigteen kuwa ciriiri ah oo suuqii dhan aad ka dhigteen meel isku raran ah sax waay waa lagu eedeyn karaa laakiin waxaan u baahan lahay dawladda inay isticmaasho amar waqti qaarkeed in wadooyinka lagu bixiyo annaga waa ogolnahay inaan wado bixino laakiin dawladda bixinaysay maamulka keeni lahayd aan la'nahay hadda marka dabka ka waran ma la damiyey maxaa gurmad ah oo socda dabkii hadda uu damay maada inkastoo meelo qaarkeed wax yar ka shidan yahay laakiin xoggiisa uu damay saasay u egtahay hadda uu damay waxaad sheegtay in dhowr jeer oo hore suuqa uu gubtay marka intaasoo idil muxuu ka bilaaban jiray gubashadaas maxaa sababi jiray
lama garan karo wuxuu ka bilowdo suuqa habeenkii baa la gubaa waqtigii dadka uu laga soo tagay suuqa baa la gubaa marka inay tahay steamer ama ay tahay dab ka kacay maadaama ay suuqa gudihiisa ay maqaayado lagu kariyo cuntada ay leedahay ma garan karno wuxuu ka bilaabmo waqti walba dhowrkaas maroo kale ma jirin miyaa baaritaan lagu sameeyey wax baaritaan la sameeyey ma jirin maxaa marka hadda codsanaysaan haddii aad tihiin ganacsatada suuq mugdi ee Gaarisa waxaan codsanaynaa horta gurmad in loo sameeyo maadaama dadka hantidii meesha u lahaa nin xoolihiisa shalay taajir ahaa saakana uu maskiin yahay horta in ummadda loo soo gurmado kan labaad waxaan codsanaynaa dowladda countiga inay la fadhiisato ganacsatada laga hortago sidii suuqan loogu hagaajin lahaa wadooyin toos u galaan kaasina waxa uu ahaa Ciise Ibrahim Aadan oo kamid ah ganacsatada suuq mugdi oo ah kan ugu weyn magaalada Gaarisa gobolka Waqooyi Bari Kenya qadka telefoonka igu waramayay haatana waxaad ku soo dhawaataan maadeys ay diyaariyeen BBC Media Action oo ku saabsan gudniinka fircooniga dhegeystayaal ku soo dhawaada maadeys kooban oo ku saabsan dhibaatooyinka ay gudniinka kala kulmaan gabdhaha waxa idin soo diyaarisay BBC Media Action aan idin kala baxo adinka iyo jilaayaasha alla waa hodan iska waran hodanay walaal nabada iyo waran aamina nabad walaal suuqan isla hayir gaar baskii baan eegay bal inuu soo socdo anna hadda dhakhtarkii ka soo rawaxo imka sidii wadada inaga sareysa loo bilaabay basasku daway soo raagaan walaal waan buku doonayo waxaan rabay inaan ku imaado walaashay qamar baa hablaheedu gudaysa ana inantaydin la siraa inaan ku daraan doonayay aabaheedna sibuu u diidan yahay gudniinka yaa na maxaa tiri gudniina walaal adduunka miyaanad la socon waa laga mamnuucay adduunka gudniinkii hablaha aabaheedna dawu kaa saxsayn waa annagaba waa tii nala gudayey waxbaanu ku noqon haddana waxaaban islahaa dee hodan ayaaba xagga caafimaadka ka shaqaysee bal ka warayso reer miyigii baaba iminka wacyigelintii gaadhee ma adigii oo magaalo joogay ayaa weli aaminsan dhaqanka qadiimiga oo meelna ka soo gelin diinteena suuban qatarna ku ah nolosha hablaheena dee waan maqlay uune saaniba umaan soo dhixin waxaan idaacadda ka leeyihiin bal iiga warran dhibaatada gudniinka ee la sheegaya muxuu yahay iminka inta inan yaroo la soo jarjaray dhakhtar kale noogu keeno wadayaabi qaar baaba dhiigbax u dhinta qaar ayaa isku furma waa cilmi shaydaan oo meelna ka soo gelin diinteena sidaan hore kuugu sheegay dhimasho alla walaala baqdinayaaba igu jirtay aan suuqaba iskaga joogay qamar maad ii raacay ayadaan rabaa inaad wax fahansiisay inkastoon daalanahay haddana naf la badbaadinayo waa shaqadaydayna mari daalka yeelkadiiya maxaad ilahayd way u dhiman kartaa carruurtu subxaanallah wax astura un baanu islahayn anagu sidii idinkaba laydin soo asturay hablaha sidaasa u asturaad fiican baana lagu oran jiray berigii hore ma waxaase asturaada dembiga astur ma noqdo waxaanina dawaa dembi aad ilmaha ka geliso midda kale haddii adiga lagugu soo qaldamay maxaad inantaada adiguna ugu qaldamaysaa waxba garan maayo hoodane dhaqankeenna un baanu isleenahay ilaashada waa taa qamar fadhida bannaanka maanta ilaahay ha inoo sakhiree bal hadalka u deji walaalo السلام عليكم قمري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصور ديراتين ما أنت أدقي هذا بقى ها وسيدا ولا ونسكا كان سو نسيبينا تشوكتي ينكله هذا نود دالنا وشغلي كسور وحدنا ونسوق حي وسيدا سمحت سكو صور عدنا سوكر لما أنت تي لا هي هسه فوقنا جت كذا يقدر مية نايجا تكتب برايا ذي رقتها ومريها يجي ما ولا لا مايا كوا يجي ما يكون وكوا حافظة شارك كوا ريا مقالة ولا جوري هاي ولا أنا آمنة أيجا نحسه وحن كولا سعنا أرنكي قلني قبلها بليجا ورا وضيق أيجا نشجع يبين سكوجيني بالضمر كحافظة نشجع يبين سكوجينا رنتي إنه لين وداقني maya walaal warsamana waan kala hadlay arrinta isaguna arrintan wuxuu igu tilmaamay cilmi jaahiliye laga baxay dee walaal hodan qof kale maahee waa gabadh cilmi u leh arrintan intaasoo sannadoodna aynu jaari asxaab ahayn oo markaa ma arrimahaaga iyo ubadkaagad kala tashataa dumarka iyo xaafadaha dee qofkii cilmi u leh ee waxaan garanayaa waa laga waraystaaye idhagayso adigu weligaaba tale kalead ku socon jirto tala maad lahayn oo waxaad ahayd jilicsane teeda kale dadkan caadadeenna iyo dhaqankeenni dabargoynaya anigu ma waraysto waxaanina waa wax weligiiba soo jiray walaala qamar dadka marka hore waxay kugu dhaamaan waa laga dhagaystaaye layskama booday bal dhagaysa inanta annaga yaana sheeko raqiisa noola imanin dadkan mashruuca ku soo qaatay gudniinku waa wax xun qamaree waxaad doontid baydha anigoo horta walaa dhagayso oo maxaan kaa dhagaystaa dee
horta waxa hay-adaha caafimaadka iyo dadka caafimaadka yaqaanaan basla meel dhigeen waxyeeladiisa islaanta wax gudaysa cilmi ay leedahay oo caafimaada ma jirto waa dad iska jaahiliina marmarba ilmaha yar meel halbowlaha jaraan markaasaa ilmahaas laga yaabaa inaan laga gaarsiin karin goob caafimaad oo degdega halkaasay dhiib wax ugu dhimanaysaa walee waa hawl hadda waxaas waa iska khuraafaad weeyaan bal qamaray adaan kuu dhiibee waxaasoo dhiba iyo qaar kaloo badan sababta muhiimka loo maray maxay tahay eed hablaha noloshooda khatarta u gelinaysaan khatarta aniga ay dili weyday hablahayga dilaysaa maxay ahayd waxaasi waa dhaqan baabiin ad wadaan dhaqankan kitaabkeena suuban lagu xusin khatar caafimaadna leh bal maxaa kugu kelifaya ee aakhirana xisaab ku sugayso ilaan abuurta ilaahay ayaad bedelaysaa naay dhegayso diintu maanta ma imanin weligayaba muslim baanu ahayn dhaqanka iyo diinta bari maysid dhaqan maba garanaysid diintu maanta may soo degin laakiin da ilaahay ma ogola wax dadka dhibaataynaya gudniinkuna waa dhib waxaan ku odhan lahaa dhaqankeena meelaha kaga dhicine orada ruwaayadahan matalisa meelaha la tag hajiib wala weyna wareeriyeen kuwan naabal shaydaanka iska naara waxaynu wada doonaynaa wadanta iyo mustaqbalka hablaheennii qamari adna dee waa ilanta sidaa hawla hadle wanaagun bay hablaheena la doonaysaa waxaan idin idhi danta ubadkayga naagiga ogi ma jirto oo iiga lexe jeclo badan ma garateen markaa sheeko kale keena ogow qamaray aqoon la-aantu marmar bay xitaa lexla jeclada ubadkaaga qalqalgelisaa na walaalay dhegayso aqoonta iyo cilmigaad sheegaysaba qaado oo iska tag adna aaminaay maanta waxaan u malaynayaa inaad wax kale iga jeedee yaa iga kaxee gabadhan maya walaal wax kale ma jiraan waanuba iska tegaynaa waan kula soo hadlay khayr baanay noqon insha allah waa ay mahadsan yihiin jilayaasha maadayska qaybtan intaas ayaan ku ekeenaynaa tan iyo qaybta xigta nabadgelyo maadayska waxaa soo diyaariyey BBC Media Action oo kaashanaysa GISAD waxaana maalgeliyey wasaaradda iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dowladda Jarmalka waa tahay intaanu ka gudubno maadayskaasi gaaban ee BBC Media Action ay soo diyaarsay haatanna waxaa markaasi stuudiya igula soo biirtay Faadimo Taxadar Yuusuf dabcan waad dareemi kartaan in barnaamijka muusiga iyo salaamaha uu markaasi fooda inoogu soo hay Faadimo soo dhawow maxaa noo haysaa maanta galab wanaagsan ayaan ku leeyahay Faadimo adiga iyo dhageystayaasha dhammaan idin sugayay iyo kuwii barnaamijka dunida maanta dhageysanayay marka waxyaalo kala duwan ayaan dhageystayaasha u haynaa muusiga salaamaha ayaan hadda soo galay waxyaalaha aan u haynana waxaa ka mid ah abal sawiro jacaylkii sanada oo saldhigi manta abal sawiro intaan sugi jirno saarin gacantiina haye bal sawiro fanaankaasi marti ayuu barnaamijka noogu yahay magaciisa kama sii hordhicin doono waa laakiin fanaaniinta da-da yar ayuu ka mid yahay waa tahay Faadimo barnaamijka qaybo kala duwan ayuu isugu jiraa ka waran adiga oo dariiq ama wado maraya haddii uu qof qorisita oo intuu aad ishiisa ay isku dhacdo ishaada iyo ishiisa isku dhacdo qoriga kugula soo kaco maxaa aniga horta Faadimo kedisyada ma aragta aada u necbahay aada uga naxaa marka ma qiyaasan karo wallahi waa malaha orod bad tuu dhihi lahay aad bal markana waxba ka eegi ma yeelay maxaa laga soo waan ku eegay waa iska soconaya waa ma soconaya maxaa laga soo yeelay maanigu maxaa laga soo yeelay inaadeen waan iska soconaya inaadeen waan ku dhiigooda cabbi jiraa waa ka maanigu dhiigooda ku cabbi jiray waan horta inaadeen ayaa waa qolamaata maanigu qolamaata waa tahay waad arkaysa Sooraan iyo Jawaan ilaa naxariiste ee Sooraan riwaayada hadda ka hor ay dhigeen way marka qoribu sitay Jawaan baa wadada la fadhiyay dabcan Sooraan ma iga seegaysa hadhoona qoladiisu sii weydiinay riwaayada barnaamijka ay ku maqli doonaan sidoo kale waxay ku maqli doonaan dhageystayaashu haye ilmo yar oo qoslay markaad maqashid hooyana waa tahay maxaa ku xiga talo barnaamijka ayuu qayb ka yahay qoslayaa la dhahaa yarkan waa wuxuu ka mid yahay waxaan filayaa inaad xitaa hore u dhageysatay codkaas adoo xitaa BBC ka shaqeyn ama aad yiriisa
oo hadda ilmo yar maaha waa dheer rabtaa markaas weyn isagu maba dhaafa da'daas Faadumo wiilkan yarka ah oo qoslay isaga badi farxadaha wuxuu uga qayb qaataa markuu arko taaniyad dhalasho iyo waxyaalahaas oo arko cid soo biiray mana gaboobo xitaa anagoo yarar baan dhegeysan jirin laakiin mana gaboobo marka qosolkana intaa ma dhaafo intaas waxay ku maqli doonaan hambalyooyinkii dhalashooyinka salaamihii aroosyadii iyo meheradii waa tahay dabcan waxaan haatana idinkala baxayaa idinka iyo Faadumo Taxadir Yuusuf. Faadumo soo dhow. waa mahadsan tahay Faadumo barnaamijka waxaan ku daahfuranaynaa mid ka mid ah kaalmaha suugaanta aan ugu talagalay oo weliba hees shiriba oo qaadayo fanaanka cod ka baxsan waa Cawaale Aadan Cawaale yare dhegeysi wacan وعقيان شوشو عسى وقوليد فرحات كقرفي قافكو دونيقا ضبطو كدعاي قبكسي مشعراتو صعبكو يانو تلاقو وعقيان شوشو عسى وقوليد فرحات كقرفي قافكو دونيقا ضبطو كدعاي قبكسي مشعراتو صعبكو يانو تلاقو إيان أنكا يا قورنا بطون وركضو هاقا هاقو قوليستي أيالو قودي قفكودي دورتان مغلبان فرحات قلري اسمهن قبر دارياتي يسيقو عالفكو كوكيبا قلطهان تو قاري لبتي waa tahay codkaasi Cawaale Aadan Cawaale yaraan ka soo noqoyo heeskaasi arooska oo shiribka u ekeyd bal markana mar haddii aroos uu u heesayo hambalyo aroos oo farxad leh gacanteeda ku jirto waxaana diraya dadkan kala hooyo Siciido Xirsi Cadde iyo abti Cabdi Maalik Xirsi Cadde Iraad Aydiin Xasan Cabdirashiid Budeeye Sharmaake Cabdiraxiim iyo sidoo kale bayle Cabdinaasir Cumar waxaa la dhahay Sharmaake Cabdinaasir Sayid Cabdirashiid Yaasiin Faarax Fanax Cabdirashiid Koore Maxamuud Cabdinaasir Sayid Khalid Nasiib Jaamac Cabdullaahi Yuusuf Mataan cagaweyne ayuu ku naanaysan yahay ama ku magac dheer yahay waa Cabdifataax Cabdinaasir Sayid isna dadka diraya Cabdiweli Macalin Cali iyo dhammaan dhalinta degmada Booq baa la yiri oo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan Maxamed Cabdinaasir Sayid iyo marwadiisa oo arooskoodu ka dhacay maanta oo khamiisa degmada Booq ee gobolka Doolo waxay leeyihiin isku waara isku barakooba isku baraara bay leeyihiin anaguna waxaan la dhahay isku barwaaqooba ee reerkaasi weligiina isla jooga iskuna cireysta barnaamijku waa muusiga iyo salaamaha dhageystayaal qaybihiisa hore ayaan haatan soo gudaha galay oo ku jirnaa weliba haatana bal fanaan Cabdi Baadil Ibrahim oo fanka soo galay sanadkii 1976 ayaa wuxuu BBC-da uga warramay waayihiisa nolosha iyo fankiisii Cabdi yaraantiisii waxa uu jeclaa orodka iyo dabaasha isagoo markii dambana fanka ku biiray wareysigan qaybta koowaad isagoo wareysigu aad u dheeraa wuxuu ku bilaabi doonaa bal waayihiisa nolosha uu soo maray isagoo heesna sii raacin doona qayb kalena oo xiiso leh waan idin haynaa taariikhdaas oo kale aad iyo aad ayaan u jeclahay markii yaraanta la weydiiyo dib baan u yaraadaa maskaxda 2 sano waa sii da'yaraanaya insha Allah marka waxa weeye yaraanteeda waxaan ka xasuustaa horta macnaha waxaan orodadan jeclaa tartanka orodada iyo waxaas ayaan jeclaa ilmaha waxaan ku tartami jirnay orod iyo bootin ayaan ku tartami jirnay markaa yareen waxaan xasuustaa horta dadka uma fiirsadaan nin orod badan baan ahaa bootintan ku fiican laakiin dadkeenu ma aha dadka mataqaanaa ninka sida uu orodka badan sidii waxay u haystaan qalqaali u haystaan ninka fakfakta badan ee bootinta badan
ee orodka badan ee enerjiga leh fariiso isaga dhanba qiimo ku fadhiyo nin waxa weeye mataqaan milyoneer soo korayo weeye marka waxaa lagu leeyahay fariiso ma fadhin kartid jirkaaga waxaa ku jira energy marka mar walba waa kacaya waa ordaya waa duudaya fariiso waa la fariisanaya ka dambe aan soo yar weynaaday waa ka yar bedeshay waxaan jeclaa dabaasha anigu reer beledweynan ahaa qallafan ku dhashay laakiin dabaashaan markii dambe adigu jeclaaday waa ka soo gudbay ciyaaraha maalmaha ciidaha ah ayaan ciyaaraha daawan jiray ciyaaraha marka waan ka heli jiray sida loo dhaanteynayo tusaale ahaan beledweyne waxaa laga ciyaaraa bullada laga ciyaaraa bulladana waa ciyaar aad mataqaanaa aad iyo aad u kulul way kulushahay dadku badaa wadaan laakiin aad bay u kulushahay markeen waxaad arkaysaa nin lugihii saxamo ku garaacaya gacmihiina biro ku wata gabdhaha qaar baa u sabcinaya mid kalena wuxuu wataa 2 birood wixii oo dhan isku garaacayaan waa gurbaan iyo saxamo iyo wax isku jiro oo wada teemba ah teembadaas lagu ciyaaraya heesaa kusii dhex jira iyo bootin qiyaasan goorma marka fankii aad kusoo biirtay oo fanaan noqotay adoo heesaya ayaa marka dambe waxaad dhexgelaysaa fankii والله music hal ii tumo ama kaman hal ii tumo ubax kacaankaad galaysaa ubax kacaanka markaad kasoo haysto kadibna hirgelinta heesaan kusoo biiray markii dambe ubaxa kacaanka goorma gashay sanadkee 76 waqti dheer baa kasoo wareegay cabdi marka maxaad ku bilowday heestii kugu horeysay xasuusta heestii ugu horeysay nin mawlid leeyahay ayaa ii dhiibay waa sidaan kuu sheegayo ubax kacaanka markii beledweyne laga aasay ayuu riwaayad yar sameeyay riwaayadii baa mataqaanaa hal hees ka xasuustaa heestaas weli ma aanan hirgelin laakiin sanadka soo socda ayaan jeclaa in aan hirgeliyo insha Allah waa heestii 76 lagu dhiibay 75 aan u maleynaa waliba inay tahay 75 ilaa bariga maxaa la sugaysay cabdi heeskaas waxaan la sugayay heestu kii adigu aan qablada waa bari ku biiray mashquul kaban iyo barashadiisii iyo heesa kale oo caadi ah ayaan galay waxaan ila qaadi jirtay gabar fanaanada oo shukri la dhihi jiray gabadhiina fanka way iskaga baxday marka sidaan u lahaaba sanadka dambe soo saar wadankii baa mataqaanaa burburkiisii dhacay kadibna qurbaha markaan imid fanki waa ka niyad jabay mar dambe la qabsaday oo siri de noloshii caadi sidana loo wada noolyahay bal adna iska geeskaaga kaga noolow marka adigu waxa weeye hadda waxaan jeclahay in aan soo saaro insha Allah waa tahay heestaas waa fahanay laakiin waxaad noo sheegtaa bal heestii ugu horeysay oo maslax isla soo taagtay hal beed baan ku qaaday insha Allah haye بريايو ضيح كان بالكو واسو بريايو ضيح كان بالكو عدعت صوب حيسي برتبه ضرورة بدانت ذكورتان بلاني أركبان بدانت ذكورتان بلاني أركبان فرحة كلا بلادا يا نبادين هذا الكويه بيانكا بسنيا بيسبوغاني عوابا بيسوق عن بناناي kadib fankaagii xaguu markii dambe uu kusii bulaalay oo maqurbaha markaad tagtay mase intaad xamarba joogto heeska markaan adigu riwaayadda dhignay heeskaas ayaan ka xasuustaa kadib riwaayad kala jirtay filfil inoo dhiba alla ya raxmo waadin qadijihiiraan ayaa ila samaysay dadku aad bay u yaqaanaan gobolada waa beri ani iyada ku wada biirnay marka riwaayaddaas waxaanu dhignay 78 ayaanu dhignay goboladoo dhan baanu kusoo wareejinay riwaayaddaas hees ku jirtay oo hees amran la dhihi jiray ayaan tartanka hirgelinta heesaan maqli jiray marka beledweyne aan u joogo ayaa waxaan maqlaa fanaaniin baa tartamay hebel baa kaalinta kuwad galay fanaaniin baa tartamay waxaan ka xasuustaa shimaali waxaan ka xasuustaa
zahardawo waa kaalinta koowaad gashay markaan adigu dhowr mar waxaa maqmaqlay waxaa sirinay oo tartanka ma ka qayb gashid beledweynaana jooga hadda haye xamar buuna ka dhacay xamar uu tartan ku dhacaya waxaa sirinay oo tartanka bal ka qayb gal marka dhalinyar badan oo asxaab aan u sheegay waxaa sirinay oo anigu maanta waa xamar baan u socdaa dagaal baan ka qayb galaya oo dagaalku muxuu yahay dagaal dhinaca heesaha ah haye tartan baan kasoo qayb galayaa halkaa bandhiga raadiyo waa laga sheegi jiray marka idaacadana live baa looga dhegeysan jiray hal idaacad kaliyaaba jirtayba marka waxaa yidhi nimayaho hirgelinta heesaha ayaan ka qayb galayaa beledweyne igala socda markaasaa la yidhi meel baar lagu kulmi jiraa baar xasan dhif la dhihi jiray oo dhalinyarada ay ku kulmi jireen marka waxaa la yidhi baar xasan dhif aan kaa dhegeysanaynaa in lagaa badiyey inaad soo badisay insha allah oo soo baxay waxaan soo qaatay adigu mataqaanaa dhar cusub ayaan ka iibsaday beledweyne waa la soo baxay kabo cusub boorsadaan kusoo ritay waa soo baxay marka hore tartanaad ka qayb galaysaa tartanka koowaad oo ah codkaagaa la tijaabinaya intaada heeskaaga la imaanin inaad heesi kartid in kalea lagaa tijaabinaya waxaa imtixaan laiga qaaday heesihii hore qaraamiga ahaa ayaa imtixaan laiga qaaday waxaa ka mid ah heeska laiga qaaday aniga iyo zahradawi iyo wax xustaa culayska isaaran irciiro caguhu qaban waa ciida dhulke caloshaydaniica fimaad qabine caloshani marka meesha tartanka la gelinayo waxaa weeye meesha inaad soo degtaa la rabaa oo tartiib usoo degto waad fahamsaneed marka adigu ma fahamsanayn laakiin Zainab Ciga ayaa ii qaaday markay qaaday hal mar kaliya lagu qaadaya markay ii qaaday ayaan dhageystay siday u qaadaan u qaaday Zainab waxay kuugu qaaday macnaha guddigay kamid ahayd miya may iyadu waxaa weeye in ay heeska ku xafitiiso nusaac la siinaya nusaac barnaamijkaad u baxaysaan way ku xafisiinaysaa nusaac markuu kaa dhamaado waa la fiirinaya daqiiqadaha ayaa lagu leeyahay soo gala haye waa soo galna hal mar ay qaadaysaa marka hal mar markay qaado adaa lagu dhahaa qaad marka waa qaaday siday aheeda u qaaday hees waxaa la yidhi adigu tartan ani waxaan mooday inaan baasay mogta markaasaa la yidhi okay hees soo diyaarsan marka aad ku tartanto ilan tartanka weli way mogtahay kan waxaa weye imtixaankii baad ku baastay tartanka waxaa weye kii aad kaga qayb galaysa masraxa marka haddii aan ku dhaco waxaa leeyahay macalinka dib adigu tartanka ma qayb galaysa haddaad ku baastaan waxaa lagu leeyahay 4 qof aa laga rabaa meesha 15 qof aa joogto oo tartan waa tahay bal heeskaagii amran isagana naga dabagey abdiyo heeskaas amran waxaa weeye riwaayadii ku jirtay gabar aan isjecel lahay oo markaas iyadana la siinayo nin kale oo waalidkeeda ay yiraahdeen annagu nin baan ku garanay anna iskool baan isla dhiganaa marka waxay leedahay saasaa jirta marka maxaan sameynaa waxaan sameynaynaa waa isla fakanaynaa leenahay marka waa isla dhuumanaynaa maxay duurkan wada galaynaa waa isla dhiftoonaynaa xitaa mataqaanaa noloshaa naga xumaanayso waxaan cunnaa waayeynaa waa isla soo dhurfaadeynaa mar dambe ehelkii labada ehelna raadinayaan isku kaaya helayaan markay isku kaaya helayaan ayaa macnihii dib ehelkii u wada hadlayaan oo mataqaanaa diftii iyo wixii laga baabiyaa laleeyahay guri ayagaaba qaaraan isku darayaba gurigaa naloo dhisaya marka riwaayadana saas ku dhimanaysa waa tahay waraysiga aad ayuu dheeraa waa ayna ka raaligelinaynaa dhegeystayaal fanaanka cabdi baadil ibrahim waa fanaan inta badan wuxuu ku heesaa aalada kamanka
waa tahay aan kasoo noqono haatana bal warqadan gacantayda kusoo dhacday bedri cabdilaahi ibraahim oo jooga buurame ugu horeyn wuxuu yidhi salaan sare faadime taxadar yuusuf waa kaa qaaday marka xigana wuxuu yidhi waxaan salaamayaa dhammaan waalidiinta iyo xaaskayga wuu yidhi yasmiin xasan iyo gabadhayda sidoo kalena inta magacayga iyo muuqayga garanaysa waxaan leeyahay khamiis wanaagsan ayuu idin leeyahay way kaa gaadhaan filayaa bedriow haatana bal waxaad kusoo dhawaataan riwaayad cajiiba oo ay si wada jira u jilayaan waa jilayaasha sooraan allah u naxariistay iyo sidoo kale jawaan waxba kaa eegi maayo inaad maxaad laga soo eegtay waan kuma eegaya waa iska soconayaa waadama soconaya maxaad laga soo eegaysaa maanigu maxaad laga soo eegaysaa inaadeen waan iska soconaya inaadeen wallahi kuwa dhiigooda cabi jiraa u eegta maanigu dhiigooda kuwa cabi jiray waan horta inaadeen ayaad u eegta qolamaa tahay maanigu haa qolamaa tahay qolamaa tahay haa qolamaa tahay qolamaa tahay sheego waanay adigu qolamaa doonaysa mooji adigu qolamaa tahay inaad ila qolaan ku sheeg garan maayo يسمع محل قريدي والقوضة محل دون السنة هذا والله حظيم قال ورسكت كالك حالتي الغروية قرر معايو يا بابين اللي وين هاي ميوان هاي وحبا كاسية ماي وابو في سواق بتاع ماي ما قبو والله حال مقالة اسكسوا مرة ايه وانا بحاجة بعد الرياضي عنكم يلانو قولنا هذا القرري قولنا هذا القرري ورسكسوا على داف هذا الميل اللي قصدنا مايا هذا الميل والله يقطع لا ليش والله هذيك إذا ليش سوق هذيك أنا كوكاري والله إذا لم حد يجلس ورش هذا صعب أصلا مرة بنا صدر كريني السلام عليكم سلام ربع هو ربع وين بهذا سوى يا ماني كان ما أنت تقول علي وين جاي اسمه لا يوقف صومر واقع هل كان صومر أي سوق برتكيسة ayaa nin qori sita buuxa oo aan isleeyahay halka taagan la fadhiya ninka qarmaajoga iyo qiiqa ka baxaya iyo wajigiisa iyo jaahiisa hayn karimaysa labada indho xijir dhiiga bay weeyii waxaan is ninkaas markuu ugu yeeray 19 qof u dilay anoo dhaafayo baa saa u eega ha eegin lahayda waaba kay gula soo kacay kuye war maxaad geegis ورجع أساسي وهاي ورجع كايج ماي ورشاك محالي إيجس شو إنه وارين هاي إنه دقيقة عبي هلو هديقة وهي لا عيو كنا كلام واي أنا يقول صوكع وافريها أمام waa tahay sooraan allah u naxariisto iyo jilaaga kale ee jawaan riwaayadaasi cajiibka ah inaan kasoo noqono talow adigana haddii lagugula soo kici lahaa dhegaysto maxaad samayn lahayd nin wadada jooga oo qori haysta dad intaad u timaad ishiina iyo ishaadu ay isku dhacdo deetana qoriga kuula soo istaago waad arkaysa waxay kala muteen waa tahay haatana baldankii suugaanta ayaan u leexanaynaa fanaanka daada yar ee khaalid kaamil iyo heeskiisii bal sawiro dhegaysi wacan balsawiro safaadikiyo dhibko unka laga saaray balsawiro dadwada saafiro saaran dunidina balsawiro safaadikiyo dhibko unka laga saaray balsawiro dadwada saafiro saaran dunidina balsawiro jacaylkii sanada oo saldhigay manta balsawiro intaan sugi jirno saarin gacantiina balsawiro jacaylkii sanada oo saldhigay manta balsawiro intaan sugi jirno saarin gacantiina balsawiro rusero inago kusugan kali balsawiro hadyadola isu sidola isna sinayo balsawiro jawiga subax saxonkaaga dhigasuri balsawiro sideynana gayaan farax sameeya inago kusugan kali balsawiro hadyadola isu sidola isna sinayo balsawiro jawiga subax saxoon
istaago bal sawiro sidaan jeclow dunida surtowda bal sawiro salaaniyo kalgacal isu sartaago bal sawiro sidaan jeclow wayba surtowda bal sawiro siraadikii xubbiga oo liga saaqay bal sawiro dareelaba sidoon midi iseen bal sawiro siraadikii xubbiga oo liga saaqay bal sawiro dareelaba sidoon midi iseen bal sawiro dhulseero inagoo ku sugan qaali bal sawiro hadyagoo laysu siido laysna siinayo bal sawiro jawiga subax saxoon kaaga dhiga suri bal sawiro sideynana gayaan farax sameeya bal sawiro dhulseero inagoo ku sugan qaali bal sawiro hadyagoo laysu siido laysna siinayo bal sawiro jawiga subax saxoon kaaga dhiga suri waa tahay aan kasoo noqono codkaasi baxsan ee fanaanka daada yar ee khaalid kaamil iyo heeskiisii bal sawiro in badanoo idinkeedi ka mida oo jacayl dee la tiicaya waxaan filayaa inaad sawirateen idinkuna waa tahay warqadan ayaan haatanna akhriyayaa muuse muumin ismaaciil oo jooga wajeer gobolka waqooyi bari kenya waxaan halkaa ka salaamaya buu yidhi asxaabteeda kale ah falastiin khaliif biifeeye maxamuud mukhtaar geedi iyo sidoo kale bedri cabdilaahi ibraahim ilahaan cumar jaamac maxamuud xirsi daa'uud cabdilaahi saxnuuni iyo ismaaciil macalin horeeye cabdi xareed buu yidhi maxamed haaruun iyo mahad maxamed faarax xamda muuse saalax xawakiin maxamed waa mahadsantihiin buu kusoo gaabiyey b b c adiguna waad mahadsan tahay muusow waxaan filayaa in islaantaasi kaa gaadhicidda aad u waday intaas dhegeystayaal aan uga soo gudubno haatanna waxaan rabaa inaan mid ka mid ah kaalmaha suugaanta aan idin ciyaaray weliba qaybihii dambe barnaamijka muusiga salaamaha oo laanta afka soomaaliga aad ka dhegeysanayseen ayaan ku guda jirnaa ikraan caraale iyo cabdifataax yare heestoodii mililico dhegeysi wacan mililicada quruxdiyo inantaan ma jeertaay muuqaagu waxaana mililicada quruxdiyo inantaan ma jeertaay muuqaagu waxaana boy adoo kale marka daweysa marfaxooleheno miranaayaha udkiyo boy adoo kale marka daweysa waa tahay codkaasi baxsan ee cabdifataax yare iyo ikraan caraale oo iyadana codkeeda weli u soo socdo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha anigo faatmid xadir yuusuf ayaa idinla socodsiinayay tan iyo barnaamijkan intaan ku kulmi doono waxaan idin leenahay guud ahaanteenba nabadgelyo Kugu
noqoshada